Waa maxay hammigaaga ugu weyn ee noloshaadu? Ma tijaabin kartaa waxaad dooneyso inaad ku guuleysato? Weli naftaada ma u sheegtay wax kastood ku haminayso inaad gaari karto? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, Ramadaan mubaarak. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Balse intaanan muuqaalkeena maanta guda gelin, subscribe channelka haddaad nagu cusub tahay. Sidoo kale like saar muuqaalka. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay ninka la yiraahdo Ferris Met. Ferris Met waa ninka sameeyay shirkadda la yiraahdo Federal Express. Markii uu dhiganayay jaamacadiisa ayaa macallinkii ardaydii ku yidhi, arday kasta waxaad ii soo qortaa mashruuc ku saabsan hadafka aad nolosha ka leedahay ama hiigsiga nolosha aad jeceshahay inaad ka gaadho. Mashruucaana waxaa lagu bixin doonaa buundooyin ama dhibco lagu hayn doono imtixaanka. Arday waliba wuxuu soo qoray wixii uu ku haminayay. Ferris Met wuxuu soo qoray inuu doonayo inuu sameeyo shirkad alaabooyinka u dhoofisa oo gaarsiisa daafaha dunida dal kasta oo ay doonayaan, kuna gaarsiisa 3 maalmood oo ay shirkadiisu noqoto tii ugu horeysay ee nooceeda ah. Macallinkii markii uu arkay mashruucii uu soo qoray Ferris Met wuxuu saaray calaamad madow oo qiimeynta buundooyinka hooseeya. Kolkii uu Ferris Met weydiiyey waxa uu calaamada madow u saaray mashruuciisa, waxa uu ku yidhi maaha wax macquul ah oo maskaxda geli kara. Waxaanaad meesha igu soo qortay. Ferris Met isagoo xanaaqsan oo xaqiraada macallinka kula kacay ayuu ku yidhi, macallin iska hayso calaamadaada, anna waxaan iska haysanayaa hadafkayga. Maalintii uu jaamacadda dhameeyay, Ferris Met wuxuu go'aansaday inuu ka midho dhaliyo hadafkiisa. Waxa uu bilaabay shaqo aad u fara badan, halgan iyo dadaal dheer si uu u xaqiijiyo doonista waxa uu jecel yahay. Wuxuu amaahday lacag, waxa uu salka u unkay shirkaddii uu ku hamin jiray 8 shay ee dibadda loo diro. Waxa uu raacin jiray 4 ka mid ah oo isagu leeyahay si uu u tijaabiyo awooddiisa wax dhoofineed, balse kuma qancin halka uu joogo. Wuuna sii waday dadaalkiisii. Dadku way la yaabi jireen sida uu wax u diro, muu niyad jabin, kamana hadhin ee waxa uu sii laba jibaarmay dadaalkiisii. Ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay in shirkadiisu tisqaad iyo taabaqaad noqoto. Maanta waxa uu leeyahay shirkadaha ugu caansan shirkadaha alaabooyinka dhoofiya. Adeegsiga shirkadiisu waxay ka gudubtay daafaha dunida, waana shirkad ku fadhida balaayiin dollar. Haddaba daawade, waxaad u baahan tahay hal daqiiqo oo noloshaada ku beddeshid. Haddaad kartid inaad hadaf yeelato oo aad wadnahaaga ku beertid oo aad u diidid wax kasta oo ku niyad jabin kara, wax kasta oo ku maray habaabin kara, shaki iyo walaac ka fogaatid, kastoo kula soo gudboonaada u samirtid, u dulqaadatid duruufaha sokeeye si aad hadafkaaga uga midho dhalisid, waa hubaal inaad maalin maalmaha ka mid ah aad gaadhayso hamigaaga. Daawade, waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe dheh oo nagu soo biir, siina share gare. Wassalaamu calaykum.